السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن داود يا الميل ودواد جوكتين channel كداونيسين و channel دكتور صدام حسين كسو دوادا انت مانتا فيديو او قد قلن حين انك عدسنا يا فالان channel كا هدية نوع سبتهين انات لايك دا ايو سبسكرايب كا ايو شير كا نصارتين انتينا كلانا كسو دوادا مركلة و channel كي دكتور صدام حسين مانتا محاين وضع حادك اوغاني كرتا كلا رضا بدن اي لادا هاي كازا haddana aan u gudagalno fiidiyodaadii 95% waxaa laga rabaa inay noqoto biyo caadi ah oo clean ah 5% ka soo harayna waxaa waaye minerals ama electrolytes badan baa ku jiro ama by product badan baa ku jiro ay kamid tahay cusbada ama sodiumka sida loo yaqaano urea-ga waxaa kale ku jiro chloride-ka iyo bicarbonate-ka marka numberka koowaad ama colorka koowaad aad ku ogaani kartid ama aad wax aad kaga ogaani kartid kaadadaada hadii ay kaadadaada ay clear ay tahay hadii ay clear ay tahay maxay u dhigantaa ama waa maxay macnaheedu kaadadaada markay ay clear tahay oo waxba color oo idil ay ku jirin waxay u dhigantaa inay tahay inaad overhydrated tahay overhydrated maxaa waaye biyo badan inay jirkaaga ay ku jiraan ee kaadadaada ee banaanka u soo saarahay ama biyo cabitaankaaga uu badan yahay taana wax dhiba ma lahan waxay cadeynaysaa inaad qof oo jirkiisa ilaalinayo aad tahay ayna ay wanaagsan tahay laakiin overhydrationka badan biyo cabitaanka badanka aad cabaysid dhibaatooyin yaryar baa la xiriirto ay kamid tahay kow in ay kaadadii ay sodium ama excess oo sodium ah ama urea-ga ama bicarbonate-ka ama chloride-ka ee jirkaaga ay ka soo saarto taana waxay kugu dhacaysaa macaadiintaas oo jirkaaga ka soo baxay inay imbalance ama metabolic imbalance uu ku dhaco jirkaaga midka labaad aan u gudagalno waxaa waaye kaadadaada hadday yellow ay tahay waa maxay macnaheeda kaadadaada haddii ay yellow ay tahay macnaheeda waxaa waaye inaad okay aad tahay oo jirkaagina oo well hydrated uu yahay kaadadaada haddii ay yellow tahay macnaheedu waxaa waaye inaad hydrated aad tahay taasna wax dhiba ma lahan waxaana laga rabaa in kaadadii ay noqoto pale yellow lemonade wax la dhahay kani wuxuu cadeynayaa inuu jirkaaga uu biyo uu leeyahay uu wanaagsan yahay oo una wax dhiba ay jirin midka saddexaad waa maxay kaadadaada haddii ay tahay orange-ga hadday tahay maxay u dhigantaa ama macnaheed maxaa waaye macnaheed waxay noqon kartaa inay tahay kow aad isticmaashay fruits ama waxyaalo oo kaadadaada colorkaas ku dayahaya inay tahay waxaad qaadatay ha ahaato haddii ay fruitka sida carrot-ka ay tahay haddii ay yihiin daawooyinka aad isticmaalaysid ama daawooyin aad isticmaashay oo colorka kaadadaada bedelay saddex haddii ay maaragtay waxyaalo kale oo adiga aad cabtay ama aad qaadatay ay tahay saddexdaas shay bay kaadadaada ay orange u bedelay colorka afraad ay tahay inay kaadadaadii ay noqon karto red ama sida loo yaqaano redka hadday noqoto waa maxay ama guduudka kaadadaadii haddii guduud isu bedesho waa maxay macnaheeda kow waxay noqon kartaa ingiriiska waxaa la dhahaa hematuria wax la dhahaa jirta ama hematuria waxaa waaye kaadadaadii oo dhiig lagu arko haddii kaadadaadii ay dhiig lagu arko macnaheedu waa maxay waxay noqon kartaa kow inay oo dhibaatooyin ay ka jiraan kelyahaaga tawa kow waxay noqon kartaa inay dhibaatooyin ay ka jiraan tuubooyinka kaadada suuqa waxay noqon kartaa inuu infection uu jiro oo kaadada ah saddexdaas shay ayay noqon kartaa marar qaarkood redkani ama kaadadani dhiigga lagu arkaayo haddii markii ugu horreysay ay tahay sida dumarka camal waxaa waaye kaadada mar walba ee isbitaalka ay tagaan haddii kaadada dhiig lagu arko waxay noqon kartaa inay periodka ay qabaan ama martida bisha ee la joogto waqtiga ay martida bisha waad fahmi kartiina u malaynaya waxaa waaye monthly periodka haddii u joogto haddii ay qabto gabadhii ama caadadii ama xaydkii ay qabto waxaa waaye kaadada dhiig waa lagu arki karaa taas ma ahan marka inay gabadhii ay jiran tahay ama ay dhibaato kale ay qabto taas waxay noqon kartaa inay tahay dhiiggii ay keentay laakiin wixii ka duwan ama ninka ragga kaadadiisa haddaa dhiigga marka ugu horreyso lagu arko taa waxay noqon kartaa ama inuu dhagax jiro kaleeyihii ay xanuunsan yihiin oo dhagax ay jiro dhagaxan uu keenayo marka ugu horreyso laguma degdego oo maaragtay wax baaritaan iyo saas oo zaa'id lagu sameeynaa malahan waqti baa la siinaya hadduu dhiiggan kaligiis u dhamaanayo
haddii uu muddo u taagan yahay test labaad after bilooyin lagu celiyo weli ay dhiigga u taagan yahay waxaa la rabaa in baaritaan culus lagu sameeyo qofka. haddii uu dhiiggaas uu zaa'id u yahayna kaadadaasi haddii protein uu la socdo dhiiggan uu la socdo taas waxay ku caddaynaysaa inay keliya ay dhibaato. aan u gudagalna midka afraad ama shanaad oo noocda kalarka shanaad ah waxaa maxay bluega ama greenka. kaadadaadi haddii blue ay tahay ama ay green tahay maxay noqon kartaa? waxay noqon kartaa in ay ku xiran tahay ama ay tahay daawo aad qaadanaysid, daawooyinka ama medicationka aad qaadanaysid way keenaan kaadadaada inay blue isu beddesho ama green isu beddesho. marka daawooyinka maxaa ka mid ah daawooyinka like methyl blue la hayo iyo kuwa kale oo intaas ka badan. marka lixaad ama kalarka lixaad ay kaadadaada isku beddeli kartaa ama waaye brownka markay isu beddesho kaadadaada. brownka markay kaadada isu beddesho maxay kuu sheegaysaa? brownka markay ay noqoto kaadadaada kow waxay kuu sheegaysaa inuu beerkaaga uu dhib ka jiro tawa kow ama in uu keliyahaaga ay dhib ka jiraan. marka mar walba waxaa fiican inaad samaysid baaritaan beerka ah, aad ogaatid beerkaaga inuu fiican yahay ama inuu waxay ka qaldan yihiin. midda kale waxaad samaynaysaa baaritaan oo keliyaha ku xisaabsan. waa maxay dehydrationka ama waa maxay biyo la'aanta oo jirka ku dhacdo? calaamadaha lagu garan karana waa maxay? calaamadahani waxaa ka mid ah kow qofka in uu jirkiyo idil ama skinkiyo idil maqaarkiyo idil uu wada qalalo qofkii ama biyo la'aan darteed uu u qalalo qofkii skinkiyo. midda kale waxaa waaye jirkii oo ama farurihii oo idil oo wada qalal. midda kale oo qofka isku ogaani kara waxaa waaye wareer joogta ah ama laciifnimo jirkii oo ka jirto qofkii uu dareemay. gunaanidkii barnaamijka meel walbaad joogtiin fadlan like, subscribe iyo shareka nooga dadaala sida iyo nabad.